وينيا قدوميها برنامجك حلدور ولا شيء ضيح أحمد محمد وإلى الديارة وحي عن كل إمامي لحين وحي عن كل بقر لحين وحي عن كل هديه لوجو تلقلي وجوهرين سيدا نقلك عادة يولبا حبراء برنامجك حلدور قطالو أبها إنتي كهريدي مركو خروح حلو إمامه waxa ugu wanaaga badan oo astaanta iyada ah calanka quruxda badan ee xidigta bartanka kaga taal ee shanta gees ayaa lagu imaamadaya waxa uu imaamadaya oo loo gartay inuu hadiyada huwiyo gudoomiyaha xisbiga garso xildhibaankayga shaqadiisa ay calanka iyo shacabka aan wax isu ogolaano aan la awoodo aan doorka qiimaha badan xildhibaanka yaga anigu sakariya waxaan u aqaanaa wadaniga Soomaaliya wadanigii ayaa gudbinaya wadanigii ayaa hadiyada calanka naga wada dhaxeeya huwinaya waana hal doorkii aan caawa la caweynayay hambal yaan leeyahay waaw ma sha Allah hambal yo wala huwiyay بدن أي تشي سلا ساري أو عالكا أتوجدان روح بدن إيش على الفيل الشق ولا إيدي ولا حبليين حبليان لنا هاي هالدور كعوا أو سكرية حاج محمود حلبان كيجا وإنه إمام ماذا أي هديتي كوار لوجو تلاقي إمامتي عجيب ولي توفي وانتا ولا توفي ولا توفي عوا أبوهانا وكم يحيي توفك نقلك أو حلبان كتومي وانتوش كله وفكر لنا وحنشور وينيا وهديت قيمة بدن إينا إنه كتوسينيسا رئيس الوزراء وحكاكي دولة فدرالكا وزير كيجي أربعة دبادة تلك الصومالية قدوميها حسب الهيكسي قدوميها NTV حلبان فوزية حاج محمود أي قدوسينيسا كتاب كقرآن كريم تحت يالو أيالو كتونسية حمبليو يالله وحنسون وينيا قدوميها اللي يرادا قبل كبنادر عبد الكافي محمود مكران ملحوينها سنة طلبنا في الصوت اللي جهة ورحمة كتونسية أبيتا أيو كتونسية بلاتا قروح دنبالن أو لقنت اللو كرين أيو أبحا حمبليو يالله waxaa kaloo la guddoonsiinayaa caawa imaamidinta boqorida sharfida weynaynta abaha waa badweyn looma kala maqna waxaan soo dhaweynayaa si uu hadiyad kale u guddoonsiiyo oo ay haldoor ugu tala gashay gudoomiyaha golaha abwaanada abwaanka yaga guddoonsiinaya bilada awoodka quruxda badan waa diinka أما إذا حاولنا هيسا بلادي أولكي ميسي لقسي تناكما وحلقوا كرسي بلادا أولكا وحنبلينينا وفقادينينا وحلقوا تونسيين وإنتا حديدت أيالكوا تونسيين كريه وحنبا يمدلو رأيي كسو لقادا حدين رمتا لغا أباها ما أقل ما هالدور كعاو مرقاتيا كعامرتين وقوليسو hambal yaan ku leenahay markan waxa inoo bilaaban doona khudbado iyo hadal jeedin aan dhigaha marnaba maqalka ka darin macaanta ee xildhibaanada balse laba su'aal ilaa saddex su'aal oo interview ayaan jeclahay abaha kursiga sharafta badan ee boqran ee bilan inaad noo fariisato waxaan soo dhaweynayaa walaashayada Farduus Sheekh Cabdiraxmaan si ay dhowr su'aalood oo taariikhdiisa si aan u barano adabigu inta laga badalay isma baryaqaan abaha waa kuma haduu بكيسة هذا سنفرد النقطة هذا ولا طوبي هذا ولا بقري ولا إمامة وكما لبسوا إلى 6 سؤال أنا لو يدينا هذا الكلام تقول بينا
markan waxaan ku wareejinayaa walaashayada oo interviewga inoola yeelanayda abahaa soo dhow. أبو كبر آمين وصبي آمين. marka waan salaamayaa salaan qofran oo wanaag badan waxaan u mahadcelinayaa bahda Haldoor dabcan qool adag oo u muuqata in juhdi la geliyey in qof la soo wareysto isagoo fogeyn ama howl kale waqtiga waa inagu celiyey marka ma badinayo cabdiqaadir araba laga su'aalo sida kaliska looga dhigay inaan kalsaan kaga dhigo ahaw waa ka badanta sida caadiga ama u maleynayo qof ku gaaraya soo dhow walaalihii sharafta leh madaxda dadka qiimaha badan xafladan ka soo qayb galay dhammaantiin waa idin salaamaa. xafladan ani waxay ii tahay mudnaan gooni ah. waxaan arkay xaflad mar dhow meel lagu dhigay oo dad lagu abaalmarinayay. waxaan isleeyahay adigii oo jid maraayo meel kasta tagaay oo la arkay maxaa lagu abaalmari waayo. waxaan rabi inaa youtube-ka aan ka dhaho bal saagisaanaa ficnaa haddana waa iska dhaafay wallahi inaan been sheegin. rabbul kacba ma isdhehaynin cadaa dadku ogyahay oo lagu abaalmarinaya. marka waxaan ogahay soomaali dad jiro inay yihiin ma ahana micnaheeda in calilii abaalmari ahaa inaan u dhahaayo laakiin haddii macali ay arkeen maasha dadku waa jecel. weli su'aal ku saabsan in hortaada la rabo ma lagu weydiiyey ama qof aad ka shaqaysay intuu baaritaankaa socdo. maya laakiin gabadha hadda oo dayax ah waxay u tiri guddoomiyaha waxay tiri waxaan rabaa barnaamij aan rabaa xafladiisa la dhigaayo adina waxaan rabaa inaan wareysi xafladaasna waxaa ku leedahay hadal inaa ka hadasho oo hadalka soo jeedisa aad leedahay marka habeenkaas ha ogoonin. afar bilood baaritaan lagu waday dareen nuucay kaaga dhigantay hadda waxay iga dhigan tahay dad oo waxgal macnaa dadka laba nooc kale biyaha markino waxaa laga yaabaa usoo oo nadiif wax yar dhiba caan hadday ku dhacdo caad iyo sida hore midibka hore ma yeelanayo mogtahay. marka dad nadiif inuu jiro oo dadka iyo dalka og laakiin meelay ay wax ka arkaan ay haysan ilaa mugdigii dhibkii iyo dadka xumaa iyo waxyaabahaas qarinay. marka waxay iga dhigan tahay in dad wanaagsan jiro oo dalkii iyo dadkaba og laakiin tabartu u yar tahay. tabarta Haldoor inta way ka badnaan doontaa sidee guddoomiyaha ay ka banaan qalabnaadaan heer waxaa la gaarsiin doonaa qaarad ama Afrika doorka Afrika ee ugu abaalmariya Haldoor hadduu eebay la gaarsiiyo waxaan dib ugu laabanayaa sheekadii aan daawanay oo aan markhaatiga keenay gulow aadan ogeyn markii la soo diyaarinayay maxaa laga tegay oo sheekadaas ku jiray ama muhiim ku ahaa adigii taariikhdaada lagu tuso ama lagu soo bandhigo. wallaahi walaashii waa badan yahay 11 bilood aan shaqadan wadnay dadka qaar aan u tagna xataa qaar ma naqaan ma fahmino. marka waa wadad jidka aan isku aragnay jiro oo ani waxaan sameeyaa warqadda oo dadka lacaga ii soo dhiibay lacagta jeebkaan gashtaa daruuxna waa joogaa dowladka warqadana waan qaataa hadda islaamka oo taalada ku arka oo kale warqadda jeebkaan ku wadaa lacagtana waa wada iyadoo iska yar. marka qof aad u dhib arko waa degaa kaamirada isku aadinahay ma ficintaa nabad khayr qofka waa ka farxina. marka dadka dibaddana waxay jecel yihiin farxadda keliska marka hal erey aan jeclahay aayad qur'aan waaye
يؤتي ماله يتزكى مالكيس وحب بحياة إنه اسكو ظهير واسكو سافية يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أحد مرؤوس بنان نعمة أول أول جدو معناها إن كان شري وحفوق علي بري أول جد أما ما أنت وحسي سومالي بدنا عنده حام معناها دقن كنخل أو خوف مضح عن مركا عدتك والحال وسينا وحدا بين مركا وحنا خفيف إن هذا يمير عليه مركا وحياوان قيمة الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى محوراتنا إلا ابتغاء وجه ربه تعالى وجه ربه ازددت سوسمين marka dadka walaalaha u mahadcelin aan wax miyay shacabka rooda iska ahay abiy waxaan lahaa Cabdikariim Xasan Gurd abukaati Gurd ah maxkamadii uu ku dhintay wuxuu dhigay kartuuma iga kan shacabka rooda inoo shamo wax baraha oo wax barto ilaa intii ay barteen wax barto marka wax kasto wax rabbi bixi waa ani maanta isleeyay dadka dibadaha jooga marka runta niishay walaalay dhig aan ahayn malaha hadii la dhoo abaha meeshaas ma ku jiro wal raadina waxa la ninkaas loo raadiyo hadoo ninkaas aan waxaan meel aan ku aamin dad la aamin waa jooga laakiin fursad waay ani nasiibka ilaahay isaqir marka laakiin anyo le aya markii kugu horeysay aad bilowday maxay ahayd sababtii inaad safarka تذكروا اللي فيه أنا يعني استطعت هذا الكلام لكن دريت كذور يبتدين أتفضل أنا حفظ أنا طلعت أشتغل أنا أكمل وهايا ماما ما هذا أو جرمل جرتو يوتيوب كوحدة هذه $100 أنا صدرا واحد كديك تقل خلق وحس خلق كديك معناه سيلو دوبو وواخذيننا ما أنتوا أنا وقش هاي وعنونا مركوسينو عملا إحساس على سمعمو أنا وحنا نيو أنتم مبانية قبرتي جدك بدليسي إبكير أنا هالشيء بقول كم دور مركي إذا وكبلانا إذا صدق أنا وسيلنا بقول كدور إذا سيلنا المعمل سوليتي حتى لو بقول كون تتكلم إيه كشيء أنت ويدي له أو شيء لا العكس ده بقول كون واحد وأنا بحين كل يوم بلوت dibadda aan geynay ilaahay geeyka suku laakiin anaga u dadaalnay iyagoo iska quuqus dadka badana waxa dhoosin dad badan waa la waayay beledka intay jiraan dad badan oo la waayay qaarna xuriyaan waay qaarna guri ma ka baxaan waa dhiban yihiin laakiin waxaan aragnaa ninkii xamarweeyda socda ama waa beri socda laakiin dadka halaan socoto halaha kale oo guriga ku jirtaa jirto oo ciil iyo rafaad iyo cudur guriga kula jiro marka walaalaha خيرك الجعل سؤال شيء ويديسي معي لما كان عارف $100 عندي أنا وحويه وحنا معناه وحي للنظام إيه ما هنا تذكي أي آمن أنا معناه باوقة الشغال وشغل مصعنا الدولة اللي كذا وحنقولها هاي هذه الشعب كعيشنا وكشوا من الدولة دول إلى يسعكوا وحكم بعدين الشيء وعلى المشكلة على الشمال أنا قلنا لحتى عن بحيي بدأ يجيبي لكن أنا قلنا ماشي سيد الموضوع ترى قال قفك لو بقول يسديد تن $11 يبيع لحسنتي ما هو صابر لحسنتي جالس أنا وأقول هنا وحكي هنا معنا $1 هديك أنا $1 على إيديك أساسا مديبا قفك تبي تجوا عليه نقول لو بقول يساسا دريه حوالي بحيي قصة $20 هاي ويلي شيء أو بيجي نحيي قصة يعني كم $1 كده مرة هذا ويل ولو تقول أو كله تذكر مرة كده كده عدي بده حليه يلا عكسه وبينا هي هذا معاني وصارت مرة تذكرنا معاني وايد تذكرنا معاني وانا كذا لكن هو فرصة جواب هذا سوف يوتيوب كجواب بديه وكذا أما تذكرنا فرح سنة برنامج خمسة ولا أنا كهر أنت أنا هالدور كعاوة وأديك أنا صوب بندقين ما حد سويس قف كلام سويس ما سويس ويران شو مسكوا قطعنا صوب بدون يعني عاو بصوبهم ومن صوب حلو الحمد لله واحد هذا واحد ما يمسوي إنه صوته هو لكن والد التسبيح
هقولني يعني كده معك عشان أنا أقول أنت بينو علي أنا بقول يا أبي أنا على تبي كوس عامي مالاي ولا ليجا خير على نصير مركلة يصبر dadka oo meesha joog iyo sabr sababtoo aniga waxaan arkay anoo khabeenin oo shaqo ka soo baxay wasaaradda ka soo tagay qof suuq xoolaha agoon ilma sagaal cunug hayso aan balamiyi marka aan waqti waa ku xisaabtama shaqada markaan joog iyo meesha ku xisaabtama marka qofkii ay imaan anoo shaqada jiro waxaan ku qasbanaaday 3 fil inaan duu anoo khabeenin $1 ma ka helin lacagii dhiibis dhiibiyaa dadku kala siiyay markii idinkan iyo dulqaad waxaan idhooyaa amba waa dulqaataye cawada anna wax yar hadii dulqaata ها intaas ka bacdi $1 khayr Allah sii qofkii oo awaal ka saay qofkii markuu awaal ka saay maarto asaga dadka awaal u galo wax yar oo far intaas leeg awaal markii loo sameeyo wax weyn ay la tahay aniga cawada dadka aan wax siinaay waxaan siinaay in awaal weyn u galay mu'miniyan laakiin cawada waxaan dareemay dadkaas gurigooda markay ku noqdaan ayagoo $500 haysto ama $1,000 oo basiid ku helsi sahal farxadda aan cawada aan dareemayo ay iyana dareemi jireen marka $1 aad u hadday fahanteen oo ay aragteen oo ay xasuusateen waxaan leeyahay aad iyo aad u maasantay anna waxaa laga yaabaa dad masaakiin badan inay dhahaan kaas waa maasaya khayr Allah sii مقامك أنت شقين يسوى مقام أدخل على مثلا البيت مقالة لقور هاي الأفكار وكذا واجسي bulshada mas'uuliyiinta nala jooga bulshada inta nala joogtay fariimaha inaan qaadaan laga rabo hal iyo laba waxa aad dhihi بسم الله الرحمن الرحيم دولة وحتى تتبضن ولا لي كجوا أو خيمة له أنا رأي نادو صوته هل بلغ نروحوري ما عرفت هل بلغ أم هل لباح يبضن أو هايسو وهل هي بلوحوري هل كي هي بيبدأ تماما الموضوع ولا المسؤولية ما فهمت مركو حنكوا دولة فريق وحاضرة أو معناها أنا هذا الخوفة هاي سدحت هول كنا الخرج كذي ضد مساكين هبيرات نولشي كبحنا تروان لكن ما أنت واهلين دولة وحي سمعت بتاع مركا ضد أو مجيسي أنا هالقف ميو لا بقف هدي لسماه وحعني سيدي وحكويني سماه كلام طبعا قف هدي له أو نظيفة أو وحكويني يسوع نص دم مقالة لا يقدر أنا حتى عبهاي أو شعترولي يانيو على يقدر بلس ما على يقدر هدي طبعا خوف أو هلو أو شغل جديد ولا دولة وحامر كفراء تتكئين مسؤول كه مشروع تلاقي هذا تتكئ بدأ مسؤول كه guriga hooy aaba mas'uulka umadana dada mas'uulka dadka mas'uuliyiinta waxaan leeyahay siyaasad intay ka baxay intay dhiileeyahay ilaa fuusi sakriye iyo gudoomiyaha dhalinyarada sporting camal laho iyagana waxa dadka xataa xogaa tabarta ku yeemaan wax weyn ay qabanay ninka ficilka tabarta ku yeer ma fahmaysid marka micnaha hadalkay waxa uu jeedaa dawladda waa isweydiinaa iiday taala sida umadeeda u maareeyeen ummadda waa dhinteen waa baabacsiin guryaha wada xariisaya waa la rafaasayay dawladda haddii bishii $100,000 dad masaakiin uu kharash gareeyo wax weyn ay ka bedelay dukaan la furo wax weyn ay bedelay marka kale dawladdan waa dadaalo saaciidana waxa waaye culays waxaa saaran xaalkiisa ilaahay oo kii oo nafsi karine laakiin dadkaagan waa mariile sayele ada xilki istaag هذا مش فديستي هذا مش فديستي معايا يا بامر جبل كان أبو صارنا بخاف من السمية هم كانت دولة عليها
ayada dadkeeda iida umaqan iida hadadaasho ama tama qofa u samayso ama juud wa maajuud ha u samayso ama ibaxyaan ha u xirxirto iidaa laga wixii samayn karta iidaa samayso laakiin ani waxaan sheegaa dadka walaalahayga nus inta qoslayso oo jaakad wada oo faraxsan oo nadiif ah waa ogahay dadkiina waa la jecel yahay qof dadkiis necba male laakiin dadka dhulkooda yaala haddii loo maleeyo in wax oo ififaala muuqdo eragaas hadda lee maqlaani igraar maqlo ififaala waxa maho agwaani rajja iyo farxad camal saansaan ama saas camal marka ififaala waa muuqdaa shalay markii macawiista iska siibanayo maanta waa karoonahay ma fahamta laakiin dadaa dhib ku jiree dadkii ha loo taliyo aan sii dhaweyno dadka loo fariisto la duubay la imaamanay la booqray haldoorka aan caawa la caweynayno waxaan soo gaarnay hadal jeedintii munaasabadda waxaan ku horeynayaa gudoomiyaha Somaliland laanta Muqdisho Cabdinaasir Yuusuf Macallin kelmadii hadal jeedinta munaasabadda kaga adareed soo dhawow mudane gudoomiye Cabdinaasir Yuusuf Macallin gudoomiyaha Somaliland laanteeda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Muqdisho soo dhawow Cabdinaasir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا dad culus ayaa joogo oo maamuus iyo sharaf leh ma ahayn inaan hortooda ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan laba kelimad ku soo koobo طبعا waan u mahad celinayaa bahda haldoor iyo shakhsiga ay u garteen inuu ahaa qof haldoor leh xuseen sheekh axmed kadare allah yarxamuhu ayaa yidhi hadal rag waa nin la diray iyo nin isdiray marka dabcan qof kastoo inaga mid ah haddii uu bulshadiisa wax u qabto sida ninkaas oo kale ayaa loo abaalmarin doonaa laakiin qofkii isagana dhinac kale taariikh xun ka tagana isagana way qormaysaa waa tii uu lahaa oraahdii ninka xikamka badan uu yiri isku day dabadii bay guuli timaadaa marka cabdisinimo gabagiisa ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wixii qoran baa quruuma hare muxuu hadal qiimo leeyahay asalaamu calaykum waxaan markaan soo dhaweynayaa Rooble Axmed Iidle qalbi taajir inuu codkiisa ku biiriyo munaasabadda caawa haldoorka aan la caweynayno soo dhawow qalbi taajir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلواننا iyo martida ka soo qayb gashay barnaamijkan awaan winaad ka caawa haldoorkeena gudoomiyaha madasha haldoor walaashay dayax dhamaantiin aad idin salaamaya waxaan rabaa inaan laba goynti soo halkan waa qayb qaato abaha aniga aqoon isku leeyihiin laakiin in badan aan la socday inkastoo anyooga aan ku ogaa haddana dib baan kala socday hawlihiisaan gaarka ah walaalkii uu ku boqoran yahay shaqada uu hayo waa ku bogaadinayaa gabadhan isxilqaantay haldoor noo aasaastay 4 jeer oo ay hadda kor qabatay markii afraaday maanta tahayna garab baan u ahayn maama ingiriis jirta waxa la yiraahdaa there is no I in a team but there is you in a volunteers dadka volunteers ka ayaa laga arkaa you in lagu dhaho dad badan wax ku qabataan qofna kuma dhahayo waxa waaye ma dhigi kartaa anaa waxa qabtay ilaa qof kasta uu xumaynaya laakiin you baa la leeyahay volunteerkaas maanta bilada la siiyay aad u maasan yahay oo ku garab taaganahay waana ku muujinayna dareenka iyo farxadda caawa lagu muujiyay aad u maasantiin Soomaaliya Rooble Axmed Iidle qalbi taajir waa gudoomiyaha hay'adda islaamiga ee trade-ka amba ganacsiga ama xawaaladaha forex-ka loo yaqaano sidoo kale future iyaguna waxay ballan qaadeen xiliyada soo socda haldoor inay gacan ka geysan doonaan
waan ku mahadinaynaa waana ku bogaadinaynaa waxaa nala jooga oo ana sharfaya saaxiibada kala duwan ee munaasabada soo sharfay soo weyneeyay barnaamijka qiimaha badan ee haldoor oo aan caawa kula caweynayna Cabdulqaadir Cabdikariin Baha gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanada baarlamaanka ee la jooga xildhibaan Fuusiye xildhibaan Sakariye iyo dhammaan golaha go'aanada gudoomiyaha golaha go'aanada Soomaaliyeed ururada dhalinyarada madaxa bannaan dhammaan hay'adaha kala duwan tiimkan runtii haldoor ee gudoomiye u tahay Dayax waxa farxad weyn iyo caawa inaan ka soo qayb galo in qofkii mudnaay ee walaalkii Cabdulqaadir Cabdikariin Baha lagu abaalmariyay inuu yahay shakhsiga kaliya ee samafal sameeyay haddana samafalkiisa ana baraha bulshada iyo dhammaan ana shaaci jirin ana shaaci hor u shaaci jirin laakiin asagoo ilaahay agtiisa iyo dadkii soo dhiibay lacagihii oo la wadaagi jiray ilaahay agtiisa ajir ugu raadsanayay waxaan dhehnayaa waa maasan tahay waana mudan tahay runtii aniga waxaan ku ogaay Baha komikiiste iyo barnaamijyadan oo TV ka baxo laakiin si gaar ah uma ogeyn inuu barnaamijyadan caawinta oo ka shaqeeyo qof walbana waxaad ogaataa hore waxa loo yiri markaas daqa bixinayso gacantaada midigta markaa ku bixinayso bidixdeena ogaan marka runtii qofka hadduu alhuddin yahay waxa waaye xaaraantana uu ka fogaanayaa sidoo hadda sheegay barnaamijka documentary-gana oo ku soo baxay asagoo maanta 200,000 lacag loo soo dhiibay haddana asaga oo sii sadaqeynayo haddana oo degan yahay guri kire runtii waa wax weyn marka annaga ka dhalinyaro ahaan waa wax annagana farxad gelinayo sababtuna waxay tahay qof dhalinyaro ah Cabdulqaadir odayaasha kama soo bixin ee wuxuu ka soo baxay dhalinyarada waxaan rabaa walaasha iyadana Dayax oo iyadana isxilqaantay 4 biloodna runtii juhdi iyo waqti gelisay ayadana inaan dhahno waa maasan tahay hambaliyo Dayax afarta bilood dambe ee soo socon doonta insha Allah taala waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqeyn doono horena waan u shaqeynayaa Dayax laakiin la shaqeyn dhow inaan la yeelan doono wax walba ee gobolka Banaadir ugu baahatana amba dhalinyaradana waxaan ballan qaadayaa inay u furan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir waa uu mahadsan yahay wadan xildhibaan mudan iyo marwooyin qaybihii uu ku dambeeyay hadal jeedinta munaasabada haldoorka caawa ayaa la soo gaaray waxaan ka hormarsanayaa hal ruux ka soo geesiya wallahi haddaan garabka la qaban kaligii guri ma yakle ee gabadha haldoorada ah ee afarta haldoor soo bandhig Soomaaliya iyadu maxaan u garanaynaa waa Dayax Axmed Maxamed gudoomiyahan haldoor ruux ka soo geesiya haddaan garabka la qaban iyadu maxaan u garanaynaa marka National Award Sakariye Xaaji afkaaga malab yacanaba lagu qabo waa iga boobta hoosaan ka wata waa uu ku mahadsan yahay taa ayaan wada qaadanaynaa waxaad noo tahay astaan qaran waxaad naga mudan tahay taalo waxaad naga mudan tahay inaan ku sharafno waxaan ballan qaadayaa gabadha ii dhalan doonta Dayax in loo baxsho waa haddii alla isiiyo calool wax ku jira alla umbaaw waxaynu soo gaarnay qaybihii hadal jeedinta khudbadahan marnaba dhigaha maqalka ka daalay gudoomiyaha golaha abwaanada abwaanka yaga Xirsi Dhuur Maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوانada sharafta leh oo Zakariye mar hore igu dambeysay way inaan naas arkay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka dhammaan mas'uuliyiinta magac kasta iyo darajo kasta oo ku fadhisaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaamka bacdi aniga munaasabadan oo qiimo gaar ah ilaada sababtoo ah ninka ku guuleysta abaalmarinta wuxuu ka mid yahay bahada fanka marka wax gaar ah waan murugaysnaa oo markaan fiirsaday cajaladii waa adkaysan waayey laakiin abbaha isaga la iga bixiyey murugta haddana markuu meesha fadhiistay waxaan maaragtay aan rabaa kaliya meeshaan hadal badan uma baahna munaasabadda way dhacday
laakiin waxaan rabaa inaan laba qodob idin caddeeyo oo cajiiba intaas aan anigu nabadayn iyo ka shaqaynayay abwaana hadba gobol la aadahayay inta aan howlo wadnay inta aan dadaalaynay inta aan iskaa wax u qabsan ku shaqaynaynay weligay isma dhihin abahaa hawshaan ka shaqeeya lana arko iska dhaafay taas waxay ku tusaysaa hawshiisu inay ikhlaas ahayd iyo istustus iyo aysan ahayn ee wax kale waxaa ii labaysaa dayax iyo shiiqaan oo wada socdaa ii imaadeen waxaa la yidhi waxaan kaa rabnaa abaha oo ninka telefonkiisa ma hayo laakiin waa inaa idin helaha ere abunaa nin la yidhaahdaa wacay waxaa yidhi abunaa muxuu ahaa ku xir iima aysan sheegin haddana inay hawshan u wadaan ee lugtaydan ku raadin lahaa haddana ogahay arrintaa waxaan leeyahay marka abaha hambalyo iyo duco gaara iyo ammaan gaar ahaan kuu soo jeedinayaa waa u baahanayn waa ku faani lahayn haddaan ognahay qof naga mid ahoo bahda fanka iyo suugaaleyda kamid ahoo khayriyada ka shaqeeya haddaan ognahay yacni faan gaara iyo buunbuuninta iyo bini-aadanku waa ammaan jecele ammaan badanaan samayn lahayn laakiin haddaan wiilishii qaski meel geyn oon samaynayna insha allahu tacaala aad iyo aada umahadsantihiin waxaan rabaa inaan haldoor kaliya aan idhaahdo maxaan idinku sheegaa gabadha maxaan ku abaalmarinaa ma ulaynaa ulma ka badinaa maxaan samaynaa yacni maba cabiri karaba hal abuurka intaa la eg iyo dadaalka intaa la ego la sameeyey wallahi wax looga abaalgudo inaanan muxuu ahaa garan karin iyo sida muxuu ahaaye qarsoodiga iyo siyaasadda iyo nidaamka ah ee lagu wado dayax axmed aad iyo aadan kugu mahadcelinaya waa mahadsantihiin dhammaantiin أبوان حسين نوح محمد ومهندسية عبد القادر عبد الكريم أبها وبخرنتهاي وشرفنتهاي dhalinyarada way kugu faantay waxay ku tireen dhalinyarada oo ka tirsan yahay abwaanada waa kugu faanay baahdayada way yiraahdeen anna inaan kugu faano xaqaa u leedaho bool dheer oo libaaxan islana deega bool dheer oo libaax daaimkiina abuura dadka ma wada simin wala kala duruqsan yahay dowgii la joogana dalkan wadani lagama way zakariya xaaji maxamuud cabdi xildhibaan tayada gudoomiyaha kasoo soo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عبد القادر عبد الكريم بهاء همبلي. Congratulations. مبروك. أنت بقى. ضيح أحمد همبلي. أول كان وين وهي وهيو wuxuu xiriir la leeyahay ilaahay iyo qur-aankiisa saad ogtihiin xadiis nabawi oo saxiixa ay gaajaysan raadsan yaa naag jirkeeda gadata biyo ay siisay jannada lagu geeyey waa maqshin marmarnaya qisadaas waa xadiis bukhaari saxiixa famaa baalak qof bini aadana waxa weeye waxaan rabaa inaad ii sheego kliibyadan ma ahayn inuu isagu isku bandhigahayay dadku si ay lacag u bixiyaan buu sameynayay qofkii soo dhiibay macnaha qofkii soo dhiibayna inuu arko kuwa kalena lagu dhiirageliyo bay ahayd marka ma ahan ajarkiisii inuu buriyey oo uu leeyahay arka lacag baan bixiyey sidaas baan u fasiraya anu sidaasay ahayd sidaan u arka saasay ahayd marka yaan loo qaadan inuu muxuu ahaa ummaduhu waxay leeyihiin dad fiican waxaa la yidhaahdaa dadka ahlu khayrka waxaa u shareeya ambiyadana waxaa u shareeya ulil casmiga shanta ilaahay ku sheegay waxaa la yidhaahdaa macnaha awood ilaahay uu bixinayo ama bini aadamku bixiyaanba taasaa u sareysa waxaa jira marka sectaro qaybaa jira qaybta siyaasaddaa jira qaybta waxaa jirta suugaantaa jirta qaybta khayr bixinta sida cabdulqaadir abahaa oo kale waxaa jira qaybta culimmada ah oo insaanka bini aadamka wuxuu ka faa'iidaysan karaa sida nimankii dadkii sameeyey muxuu ahayd nalalkan dadkii sameeyey dadka horumarka bini aadamka dad ka shaqeeya qof walba ilaahay baa ku alhumeeyey marka waa alhumo wey ummaduhu marka waa leeyihiin ummadaha horumarayna dadkaasay qiimeeyaan
ummadaha dib u dhacayna ma qiimeeyaan dadkaas taariikh ma leh bal waa xasilan ka soo qaad wixii u dambeeyey South Africa 27 sano u xiraa Mandela millions of people waa ku guuleystay kaliya kuma guuleysan in dadkii midooba xoreeyay wuxuu ku guuleystay inaan dagaal sokeeya dhicin oo laga aarsan dadkii caddaa haddii kale South Africa waa burbur lahayd waxaa ka mid ah